toddobaadkii hore waxay dhegaystayaal inoo joogtay arrimihii NFD iyo sidii loo raaciyay waddanka Kenya oo aan ka waraysanay Axmed Cabdi Oogle oo ka mid ah siyaasiyiinta NFD waxaana uu ahaa barnaamijkii lixaad imikana bal aan halkii ka sii anbaqaadno. dawladdii Soomaalidu waxay haddaba isku dayday inay la hadasho hogaamiyaashii reer Kenya waxaana magaalada Muqdisho ay ku marti qaatay Jomo Kenyatta oo ahaa xisbiga KANU iyo Ronald Ngalo isaguna ka tirsan xisbiga la yiraahdo KADU dabaaldegii gobonimada Soomaalida bishii July sanadkii 1962 labadooduba waxay istaageen arrinta NFD ay tahay mid daaqil ah dalka Kenya markii la isku afgaran waayay rajada quudaha ee la qabay waxa ay noqotay in lagu xalili karo arrintaasi hiyigii markaasi socday oo ahaa in la sameeyo federation ay wadaagaan wadamada Afrikada bari oo Ethiopia iyo Soomaaliyaba ay ka mid noqdaan riyadaasi oo markii dambe iyada la fahanteedu aan meel marin bishii Maarch sanadkii 1963 markii wasiirkii mustacmaraadka ee boqortooyada Britain uu ku dhawaaqay mowqifkii xukuumaddiisa oo ahaa NFD inay hoos imanayso dastuurka goboleed ee Kenya waxaa taasi ka dhashay in xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goostaan jamhuuriyadda Soomaalida iyo Britain ama boqortooyada Ingiriiska waxaa markaasi Britishku ay siinayeen Soomaaliya gargaar dhamma 1 milyan iyo badh oo giniga dalkan Britain boqortooyada Ingiriiskuna waa xiriirkaasi diblomaasiga go'ay ku weediyayna laliyaashii ku yaalay magaalada Berbera ee BBC-du ay lahayd iyo ogolaanshihii loo ogolaa in dayuuradaheedu ay dulmaraan hawada Soomaaliya. mar kale ayaynu ku soo laaban doonaa gobolladii Soomaaliya ay raadinaysay arrimahooda gaar ahaan sida loo go'doomiyay Soomaaliya marka ay timaado qaaradda Afrika ee aan imika dib ugu laabanno dalka gudihiisa. dabcan waxa aan shaki ku jirin in dhagaystayaal waxa imika aad maqashaan inay u badan yihiin Soomaali ishaysa. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya muddo 3 sannadood ka horna ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ayaanu weydiinay balberigaasi sida dawladda iyo mucaaridku ay u macaamili jireen. mucaaridyo badan baa yaa xukuumadii ka soo horjeeday oo sida runta mucaaridiyadaas badidooda xaqiiqadu siday tahay anoo hadda aan rabin inaan ku tacadiyo waxay ahaayeen mucaaridyo badidoodu ay ku xiran yihiin dawlado ajaanib ah oo iyagu ideolojiya ahaan uga soo horjeeday nidaamka Soomaaliya ka dhisna waqtigaas marka laakiin xukuumadda Soomaalidu waxay ku tala gashay in ay xoojiso nidaamkaas ay dooratay oo dimuqraadiga ah oo qof walba xaq leeyahay wixii ra'yigiisa inuu sheego oo qofkii dambi cad oo sida sharciga shuruudda u qoran aan gelinin aan lagu ciqaabi karin wixii uu sameeyo ama wixii uu sheego marka xukuumaddu aad iyo aad bay u taxgelisay xuquuqda iyo protectionka muxuu ahaa dadka mucaaridka inay ilaaliso laakiin anigu waxaan isleeyahay xaqiiqadu dadkii mucaaridka ahaa ma ay qiimaynin ma ay garanin qiimaha ay leedahay nidaamka dimuqraadiga ah oo iskama ay taxgelinin inay iyagu ku tacadifalinin muxuu ahaa dhinaca kale xuquuqdooda waxa la waxay doonaan oo badiba qaynuun khilaafsan ayay ku hadlayaan marka ma u malaynayo dhinacooda inay ka soo baxeen mucaaridiintu waajibkii saarnaayo muxuu ahaa qofka mucaaridka inuu mucaarid noqdo waa yahay laakiin inaan waxaan jirin iyo been abuur iyo waxa iyaga mas'uuliyadooda aan u ogolaan karin qofkii mas'uul uusan ogolaadeen ma hubo inay iyagu ka dhowrsanaadeen laakiin dhinaca maamulka dhisnaayo officialka ahaayo xukuumaddu wuxuu ku dadaalay inuu taxgeliya wax alla wixii wax faafinana waa loo ogolaa ilaa iyo xataa loo ogolaaday hadday rabaanba raadiyaashii muxuu xukuumaddu maamuleysay sidii doonaan inay uga hadlaan waxaad ka warantaa matalan tusaale ahaan Cabdirasaaq haddaad soo qaato waxyaabaha ku dhaliilaysay matalan mucaaradka waqtigaas jiray maxaa ka mid ahaa waxyaalahan ku dhaliilaya hadda kuwa hadda aan bilaabay oo kale waxaa ka mid ahaa bilxaqiiqati muxuu ahaa iyagu waxay ku dadaaleen wax alla wixii xukuumaddan muxuu ahaa dhaawici kara inayan ka gabanin been la abuuro iyo xataa mararka qaarkood muxuu ahaa xataa gacanqaadiyo iyo muxuu ahaa ayan ka gabanin haba yaraatee xukuumaddu hadday ka samayn lahayd calaashaan u warcelin lahayd dadkaasna waxaa laga yaabaa inay xataa xaq u lahaan lahayd waxyaalo badan oo sharcigu sheegayay laakiin waxaanu aad iyo aad ku baraarugsanayn xukuumaddii ugu horreysay oo dhisantay weeye nidaamka kanu delikayd weeye waxa kanu waa nagu cusub yihiin intaan ka gaban karno si nidaamkaas uu qurux ugu muuqdo intaan ka gaban karno oo isaga ogolaano hadday sharciga jabiyaan
hay-adaha u samaysan oo qabanaya laakiin inaan ku dadaalo marka waxyaalaha hadda ka mid ah waxaa weeye waxeeroo kale oo lacag oo ajaaniba dawladda baajiyada lacagtooda iyo ka badanba mucaaridka qaarkood dibadda ka helayay oo faafinayay oo xukuumaddu ay ogeyd marka bilxaqiiqati muxuu ahaa uma aanaan dengelinin waxaad ka warantay cabdirasaaq xilligaasi xukunka rayidka khaasatan markaad eegto waxaan filaya waxaad ka jawaabi kartaa waa intii adigu aad maamulka ku jirtay qabyaaladu dowrkeeda intee leeg buu ahaa ama musuq maasaqa ama eexashadu xagga maamulka markaad eegto bal sharax qabiilku muxuu ahaa bilxaqiiqati waa iska jiray qabiilku muxuu ahaa mar walbaba qofkii raba inuu ku ugaarto qabiilka yaa ku ugaaranayay yaa qofkii muxuu meel raba inuu meel ku gaaro qofkii raba inuu dad taageero uga helo oo xukuumadda ka soo horjeeda xukuumadoo lagu dacweynayo wax iska qabiil qofku hadduu rabo hadal iska guuda jumla waa jiray qabiilku laakiin qabiil lixaad loo bilxaqiiqati markaas sidii hadda waqti dambe muuqanaysay oo saas ma u jirinin musuq maasuq muxuu ahaa haddaan corruption iyo waxaas wax waa iska jireen baan u malaynayaa muxuu ahaa laakiin waxaan isleeyahay sida taariikhda hadda la heli doono haddii dib loo raaco la heli doono haddii africa oo dhan xataa loo fiiriyo soomaaliya waxay geli karaysaa meelaha ugu roonaa xagga corruptionka ayay jiri karaysaa baa la oran karaa waxaad ka warantay cabdirasaaq adigu waktigii aad ra-iisul wasaaraha ahayd maxaad filaysaa in ahaayeen waxyaabaha isbedelka ee cabdirasaaq xaaji xuseen lagu xasuusan karo ee aad samaysay maamulkaagii ama tallaabooyinkaad waqtigaygii muxuu ahaa muddada horta sidaas uma dheerayn muxuu ahaa 3 sano meelahaasaan prime minister ahaa dadka aqoonta wuxuu hadday raadiyaan waqtigaygii xoogayga waxaan saaray waxaa weeye waddankan in loo helo nidaam administration shaqaynaya oo hufan oo karti leh labadaa eray baan ku dhaqmay aniga karti iyo hufnaan nidaam administration ah oo muxuu ahaa aan corrupted ahayn kartina lahoo wax qaban kara ayaan ku dadaalay waxaan ku dadaalay dad badan oo awal xukuumaddii maamulada ku jiray oo jagooyin wadahayay oo bilxaqiiqati intii xorriyada loo dagaalamayay dadaal ka soo sameeyey laakiin aqoontooda iska yarayd bacdamaha iyaga ka bacdigeed hadda dad badan oo wax soo bartay oo xiguba ay joogeen oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay inkastoo ayan waayo aragnimo jirinin labadooda waxaan isdhegay aqoontu inay roon tahay kuwa badan baan meeshii ka qaaday waxaan keenay kuwii dhalinyarada ahaayoo wax soo bartay waxaan rajaynayay hadday muddo joogaanin waayo aragnimadiina way helayaanin marka iyaga ugu dhow muxuu ahaa hadhowto nidaam shaqaynayo efficiency oo wax garanaya in la helo eex iyo qurun inayan midkoodna inuusan jirinin ayaan xooga saaray waxaanan u malaynayaa inkastoo aanan oran karinin miro weyn baa laga gurtay oo muuqanaya haddana waxaan u malaynayaa geedkaasi inuu caleen cagaara inuu soo muujiyay baan qiyaasayaan intii haddaba u dhaxaysay waqtigii ay Soomaaliya xornimada qaadatay iyo markii ay Britishka xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goosteen doonistii Soomaalidu ay doonayeen gobolladii kale ee Soomaalida kama soo reynin rajadoodii inkasta oo shirweynihii dadyaga Afrika ee la oran jiray All Africa People's Conference ee lagu qabtay magaalada Tunis bishii January sanadkii 1960 gobonimada ka hor la isku raacay go'aan u janjeeray Soomaaliweyn hase haatee kulankii kaasi ka dambeeyay ururkaasi uu ku yeeshay magaalada Qaahira isla sanadkaasi 1960 wafdigii Soomaalida ka socday si aad ah ayaa looga hor yimid kaasi oo aad moodayso inuu jid u noqday kulamadii kale ee Afrikaanku ay yeesheen oo dhan Monrovia shir isagana lagu yeeshay 2 bilood kadib waxa qurax ee la isla gartay waxay ahayd in jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada hadlaan sidii ay u dhameyn lahaayeen khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan sohodimaha marka qurax ee iftiinku u soo baxay dhinaca Soomaalida doodoodii ahayd Soomaaliweyn waxay ahayd madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan mar uu booqasho ku tagay waddanka Ghana oo isaga iyo Kwame Nkrumah ay wada jir war ay u soo saareen ay ku taageereen Afrika oo wada samaysata federation laakiin Kwame Nkrumah taageeradiisu waxa ay ku salaysnayd khilaaf xagga soodinta oo u dhaxeeyay Ghana iyo Togo ugu dambeyntii wixii rajaa oo Soomaalidu ay ka qabteen Afrikaanku ay ku taageeri doonaan waxa iyagu ay doonayaan waxay burburtay bishii May markii magaalada Sabah lagu qabtay shirkii ururka Afrika lagu sameeyay oo la isku raacay in xuduudihii Afrika sidii ahayna gumaysigu u dhigay aan waxba laga bedelin dhamaadkii sanadkii 1963 Soomaaliya go'doon ayay ka ahayd Afrika inteeda kale marka la eego
waxa iyaduna habboon inaynu soo qaadno in waddanka masar oo hormood ahaa dalalka carabta uu isla markaasna ahaa ka sida xoogga leh isagu ugu lug lahaa arrimaha soomaalida masaaridu mowqifka ay ku jirta inuu ahaa mid aad u adag marka la eego soomaalida waxyaabaha ay doonayeen waxa masaaridu ay isku dayday sida professor im lewis uu ku qoray buuggiisa la yidhahdo modern history of somalia markii ay taagnaayeen arrimihii n f d in labada dhinacba ay raalligeliso isagoo reedhowga magaalada qaahira ee masaaridu qoloba afkeeda kula hadlayay oo ku taageerayay qoloba waxa ay doonayso markii labada dhinacba haddaba ay ogaadeen reedhowga magaalada qaahira waxa uu sheegayo ayaa masaaridu arrintaasi ay joojiyeen soomaalidu haddaba cadhadii ay ka cadhootay britishka iyo saaxiibadooda reer galbeedku sida ay ka yeeleen arrimaha soomaali weyn ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen sidii ay taageero meelo kale uga raadsan lahayn ra-iisul wasaarihii wakhtigaasi cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu booqday shiinaha iyo indiya waxaana laga filayay in taageeradu ay ka timaado dhinaca shiinaha hase ahaatee waxa taageeradii ay ka timid dhinaca dalka la odhan jiray midowda sofiyeeti bishii November sanadkii 1963 ayaa jamhuuriyaddii Soomaalidu si rasmiya u sheegtay inay diiday taageero military oo dhinaca reer galbeedka oo dhamayd 6 milyan iyo badh geniga sterliniga waxaana ay qaateen taageero military oo Ruushku siiyay oo ku dhaweyd ilaa iyo 11 milyan oo geniga sterliniga ra-iisul wasaarihii wakhtigaasi oo ahaa cabdirashiid cali sharmaarke markii uu booqashada ku tagay midowda sofiyeeti waxa danjira ka ahaa axmed maxamed aadan qaybe Mr. Qaybe waxaan wax ka weydiinay booqashadaasi siday ahayd cabdirashiid cali sharmaarke isagoo prime minister laba goor buu Moscow yimid mar waxay ahayd 61 markii loo doortay prime minister ka bacdi bishii May 61 marka madaxda Ruushka bariga halka dalka xukuntay oo Khrushchev u horeeyay ayay sarkeen marka xiriir uun in la wada yeesho xagga dhaqaalaha in wax Soomaaliya laga taray yimaadeen marka heshiis baa la galay ku saabsan xagga dhaqaalaha wadhow warshadooda tii caanaha iyo tii hilibka kismaayo iyo ay ka mid yihiin ayaa kala seexday ka bacdi 63 iyo cabdirashiid soo laabtay markaasna dee waxaa laga wada hadlay yani sidii gacan Soomaaliya looga siin lahaa xagga militariga arrinka waxaa ka yar horeeyay wafdi baarlamaani oo Moscow yimid ayaa cabdirashiid cali sharmaarke oo prime minister-ka xukuumad ahaan u soo egmaday jaamac cabdullaahi qaalib inuu kala hadlo Ruushka inayna siiyaan gargaar xagga militariga naga gargaaraan arrinkaas waa noo fulo Khrushchev oo badda madow u jooga nasasho ayaan ugu tagnay halkaas waanu la hadalay fariintii ra-iisul wasaaraha u gudbinay adigu markii dambe wuxuu waa yahay ra-iisul wasaare naftiisa ha yimaado buu yiri ka bacdi ayaa cabdirashiid yimid bishii July 63 isagoo u socda China ayuuna soo maray way sarkeen Khrushchev waxa markaa ay ballan qaadeen inay Soomaaliya diyaar u yihiin inay ka caawiyaan xagga militariga iyo hubka militariga waxaanu ka codsaday inuu soo diro generaalkii ciidamada xukumay General Daawud Cabdulle Allah yarxamee bishii October isla sanadkaas wafdi uu hogaaminay Daawud Cabdulle Moscow noo yimaadeen marka waxaa la gudagalay sidii macaawinadaas waxay ka koobnaan lahayd waana lagu heshiiyey heshiis baa la kala seexday waxa markaa taa la socotay haddii hub la siinay bay yiraahdeen Ruushku dee dadkii isticmaali lahaa hanan lahaa in loo tababaro marka dhowr boqol oo ciidamadii ayaa Moscow loo soo qaaday oo dalkii loo jeedo Soviet Union qaybihiisa la kala geeyay wax ku baranay halkaa marka ninka ay weydiisay de intaas uu markaa ku koobnaa arrinta military ku koobnaa cabdirashiid markaa China noo dhaafay wax kale oo markaa laga wada hadlay ma jirin waxaad ka warantay Axmed dhinaca Soomaalida maadaama aad sheegtay iyagu wixii ay doonayeen Ruushka dhinaciisu markaad eegto maxaa hindisaha ugu weyn u watay marka dhinaca Soomaaliya eegto ama uu ka doonay Ruushku siyaasad Afrika siyaasad buu kala ahaa inuu Afrika ama dawladaha caalamka ee xoroobay ee wixii loo jeeday decolonization ku xoroobay inuu cilaaqaad la samaysto oo waa tartankii ka dhaxeeyay qarbiga iyo dawladda loo jeedo Soviet Union arrin ku salaysan bay ahayd
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed aadan qaybe oo ah danjirihii ugu horreeyey ee soomaalidu ay u dirtaan dalkii la odhan jiray midooda sofiyeeti iminkan ah guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalka lama baxay jamhuuriyadda somalilan oo warayskaasi aanu ka qaadnay haddaba doorashooyinkii madaxweynenimada ee soomaaliya ka dhacay bishii juun sanadkii 1976 waxaa ku guulaystay allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharma arke waxaanu bedelay aadan cabdulla cusmaan oo lagu tilmaamo inuu yahay ninkii ugu horreeyey afrika marka la eego isaga oo hab dimuqraadiya lagu soo doortay hab dimuqraadiya oo wax turxaana lahayn ku dhiibay taladii markii cabdirashiid cali sharmaarke uu noqday madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ra'iisul wasaare uu ka dhigay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa markii ugu horreysay samaysantay dowlad labada ruux ee ugu sarreeya ay ka socdaan waqooyi iyo koonfurba waxaana burburay isaguna ururkii la odhan jiray SNC oo ahaa xisbigii ugu horreeyey ee isu keena mudanayaal mucaarid ku ah dowladda oo koonfur iyo waqooyiba lahaa xisbigaasi oo ay sameeyeen sheekh cali jimcaale iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo mudanayaal baarlamaanka ku jiray oo ilaa iyo 20 ahaa dowladdaasi cusub haddaba markii talada ay la wareegtay xaaladii gobolladii soomaalidu ay raadinayeen waxba iskama bedelin french somaliland ayaa iyadu hase yeeshee 2 bilood ka hor intii aan isbeddelka xagga hoggaanka jamhuuriyaddii soomaalidu aanu dhicin afti laga qaaday reer jabuuti waxaa mar kale ay ogolaadeen amaba ay doorteen in xukunkii faransiisku uu sii socdo waxaa kaloo la bedelay magacii dalka oo ahaa markii hore french somaliland oo laga dhigay dhulka cafarta iyo ciisaha dowladdii cusbayd ee madaxda uu ka ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa ay bilowday in siyaasaddii lagu raadinayay gobollada maqnaa ee soomaalida ay wax ka beddesho oo hab diblomaasiyadeed oo ka qabo kii hore ay raacdo kadib haddaba markii wadahadalla ay isdhaafsadeen wafdigii ethoobiya uga qayb galay shir madaxeedkii ururka midnimada afrika oo ka dhacay magaalada kinshasa bishii sebtembar ayaa maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo jomo kenyatta waxa ay ku kulmeen markii dambe magaalada arusha ee dalkaasi tanzania iyadoo uu dhexdhexaadinayay madaxweynihii wakhtigaasi ee dalka zambia kenneth kawinda goobjoogna uu ka ahaa madaxweynihii dalka tanzania ee wakhtigaasi julius nyerere waxaana ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey in si dhaqsaa xidhiirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya caadi looga dhigo waxa kaloo taas ka dhashay xidhiirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Britain oo iyagu ay hore u kala goosteen in isagana la soo celiyo talabadaasi uu qaaday maxamed xaaji ibraahim cigaal kuwii iyagu haddaba markaa siyaasi ahaan ka soo horjeeday si aada ayaa waxay ugu dhaleeceeyeen inuu dalkii wareejiyey doorashooyinkii dhacay bishii March sanadkii 1969 waxaa ku tartamayay 102 ruux oo isu soo taagay 123 kursi axsaabta u tartamaysana waxay ahayd 62 xisbi xilligaasi waxa dawladda cigaal si xoog loogu eedeynayay in hantidii dalka ugu gashay doorashadii iyada oo axsaabta la sameeyay qaar badan oo ka mid ay ku dhisnaayeen reernimo waxa si xoogoobay qabyaaladii allah u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timacade oo lagu yaqaanay qabyaalada aad u nacbaa aan idinku dhaafno min qalbila قرآنك وقرية غافلين كوارعادية كتب سيدي لكو قريرايا غيلا خيرايا غيركي كهاري وننكي غليوا لالكي كهاري وننكي غليوا لالكي قد لريدي قرآن تذكشا قبضة ووالين هدوك الغلال روبكو ووقمع قليل برحيق قرنكو ومسعورو اوابو قود صداي غسر لحدنا هدان ليسكا غبانين غبايلي يجيرو لنعو غاد كان لقوا شي قد تجيري وديالتو اي قولك كويسو قبيا ويسو ما لذا غير ذا قرار واني ناس ديو نيني كيو نيني جازو هيزداو أفسو مالي قداد شيون اللو بين وليقيسي زمالي ايدي الكعبة انفراريو خيليو انا كافرونيو واكي انقاد قايو اسلبانو